waxaa la isku raacsan yahay dunidan inay ka aramayaan haweenka sababtoo haddii haween aysan jiri lahayn adduunyada mala bada lahayn si lamid ah dhinaca kalena gacan ku haynta adduunka haween ayaa maamusha sidaas waxaan ku leeyahay waxay tahay ma jirto maxkamad ka weyn maxkamadda haweenka marka haween iraga is qabtaan nin iyo xaaskiisa qabtaan meeshaas waxaa ka dhalan kara waxyaabo aada u badan oo baaba'aya hadday noqoto xoolo oo ku baaba'aysa hadday noqoto waqtiga oo kaa baabaa wax walba hadduu dagaalka guriga kugu furmo waa bis tababaraha kooxda Manchester City waxaan isweydiinaynaa sababta isagoo ah macallinkii ugu fiicnaa adduunka oo ku guuleystay Champions League horyaalka Premier League koob kasta oo la sameeyo sababta oo si lama filaan hoos ugu dhacay uu aaday kooxaha dhexe hadda kooxdiisa kaalinta dhexda ku jirta sababtan isweydiiyay ciyaartoyda ma isbedesho waa maya macalinka ma isbedelo waa maya garoonka ma isbedelo waa maya macalinka ma hamiya kii Champions League iyo horyaalka ku darsanaya waa isaga haddaba arrintaas ayaa la ogaaday waxaana uu ahaa dagaal guriga kaga furmay Pep Guardiola dagaalkaas oo u dhaxeeyay Sarri oo ah xaaskiisa oo 30 sano ay wada noolaayeen iyo isaga waxaana la sheegay ugu dambeyn dagaalkaas inuu dhamaaday oo ay ka kula tageen odayga marka xaaska oo furay Sarri oo 3 gabdhood u haysa oo ay ka mid tahay gabadhiisa Valentina ay ka mid tahay dagaalka maadaama uu dhamaaday waxaa leeyahay dagaalka haweenka ee European-ka ma dhamaado sababtoo markaa kala tagtaan qofka hantidii kula qabsanay sida ku dhacday Roberto Carlos oo hadda iska jifo wadooyinka Madrid taxirada tababarka oo dhooya madax meel dhigtay Malaysia kara marka dagaalka haweenka ma dhamaado European-ka marka la joogo Soomaaliya waa lagu kala baxaa oo isku dhamaatay waxa ka cishinaysa meerkeeda siinaysa saasal lagu leeyahay Soomaaliya laakiin inta ma dhamaanaya hantidaada waa la qaadana marka Guardiola dagaal hadda ku furan inkastoo ay kala tageen haddana dagaalkii hantida ayaa ku furan